waxaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya lagu soo gabagabeeyay shirar isdaba joog ah oo halkaas ay ku yeelanayeen ergooyin isugu jira siyaasiyiin aqoon-yahano qurba joog iyo qolqol joog ee gobolada waqooyi ee Sool Sanaag Awdal iyo Togdheer shirkaas oo nuxurkiisu ahaa sidii shacabka iyo bulshada ku dhaqan gobolada waqooyi ee Soomaaliya u samaysan lahaayeen maamul goboleed ka turjumaya danahooda iyo rabitaankooda maamul goboleedka Golis State iyo Awdal State of Somalia oo ku midoobay magaca North States of Somalia kaas oo waafaqsan nidaamka federaalka Soomaaliya qodobada nuxurka ee heshiiska maamul goboleed ee Awdal State iyo Golis State in labada maamul goboleed ku bohoobeen dalada guud ee magaca North States of Somalia oo leh astaanta qaranka Soomaaliya in midnimada iyo qarannimada Soomaaliya tahay lama taabtaan waxa qodobada kale ee heshiiskaas kamid ahaa in labada maamul goboleed ay iska kaashan doonaan nabadgelyada xuduudaha iyo dhaqaalaha sidoo kale North State of Somalia inuu si buuxda ula shaqayn doono dawladda federaalka Soomaaliya xaruntiisu ku meel gaarka ay noqonayso magaalada Buuhoodle waxaana ergooyinka afarta gobol ee Sool Sanaag Awdal iyo Togdheer ergooyinka uga qayb gali doona ay noqon doonaan tiro isleeg waxaana dhawaan la dooran doonaa madaxweynihii hogaamin lahaa maamul goboleedka lagu bohoobay ee North State of Somalia Maxiyadiin Hiirad Kaatun telefishinka CNA magaalada Qardho